madaxweynaha Soomaaliya oo galabta dib ugu soo laabtay Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyay duqa magaalada Beledweyne in ka badan 30,000 oo arday oo maanta u fadhiisteen imtixaanaadka shahaadiga dawladda wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo ka hadlay sababaha loo xiray ama loo xiri waayay social media madaxweynaha maamulka Somaliland oo cafis u fidiyay ciidamada ka tirsan Puntland oo lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool koox hubeysan oo dilka geysatay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir xiisad u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed oo ka taagan deegaan hoostaga gobolka Mudug Kenya oo sheegtay in xiisadda diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya uusan saameyn ku yeelanayn howlgalka ciidamadooda ee ka wadaan gudaha dalka doorashada Yurub oo la soo gabagabeeyay Masar oo cambaareysay weerar ka dhacay dalka Ciraaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta dib ugu soo laabtay dalka kadib markii uu ka soo qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika mudane Cyril Ramaphosa madaxweynaha ayaa intii aanu ka soo amabixin dalka Koonfur Afrika waxa uu kulan gaar ah la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaas isaguna la wadaagay horumarka ay ku tallaabsanayso dawladda iyo muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed ay adkeeyaan midnimadooda meel kasta oo ay joogaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika doorka wanaagsan ay ku leeyihiin isu soo dhawaanshaha labada dal jaaliyadda dalkan waxaad ku tilmaamantihiin dadaalkiina iyo saameynta dhow ee aad ku leedihiin nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa inaad ilaashataan midnimadiina iyo sumcadda Soomaalinimo ee aad xambaarsantihiin ayuu yidhi madaxweynuhu dhankooda xubnaha jaaliyadda ayaa uga warbixiyay madaxweynaha xaaladooda nololeed fursadaha shaqo ay ku haystaan dalkaas iyo caqabadaha ku xeeran iyagoo uga mahad celiyay hoggaanka dalka dadaalka ay ku bixinayaan dib u dhiska iyo sare u qaadista magaca qarannimo ee Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil kooxaha hubeysan ay ka geysteen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilkan oo ka dhacay xaafadda Kaawaguday ayaa waxaa loo geystay askari ka tirsanaa ciidanka dawladda sida uu ku waramayo wariyaheyna Cabdiqani Bashiir Xuseen wararka laga helay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in maanta kooxo hubeysan askari ka tirsanaa ciidanka dawladda inay ku dileen xaafadda Kaawaguday ee degmadaasi marxuumka la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyay madaxay waxaana la sheegay in raggii dilay in goobta ay isaga baxsadeen goobjooga la hadla Shabeelle waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen waxaana uu sheegay in dilka kadib in halkaasi ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan jeyda askarka tirsan ciidamada dawladda ee ruuxiisay waan la dhahay madaxweynaha amanka ah ee dawladda kooxaha dawladda ayaa rabta la dulmacay waxaa la sheegay in ay baawar ku soo horjeedeen kadib marka ay ku dileen korigii iyo kale ka qaateen laakiin askarigu halkaa lagu dilay lama hubo wuxuu ahaa laakiin askari ayuu ku dhawaa dilka dabadeed ciidamada dibadda ay halka gaaray halkaas baaritaano suubiyan hadda ninkii waa nin diris aan ahayn hadda wiilkiisa la qaaday lama oga ilaa iyo hadda sababta dhabta ah ee loo beegsaday askarigaasi balse dilkiisa ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa falal amni dari oo mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho in ka badan 30,000 oo arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee dawladda imtixaanaadkan oo hore u fashilmay ayay dawladdu dib u dhigtay kadib markii ardaydu ay heleen qish dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha loo xiri waayay baraha internetka ee bulshada sida uu ku waramayo wariyaheyna Guleed Cumar Xasan ku dhawaad 35,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku kala galay qaar ka mid ah gobolada dalka iyo gobolka Banaadir wasiiro kormeerayaal saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda oo xildhibaano ay ku jiraan ayaa maanta siyaabooyin kala duwan uga qayb qaatay daafurka imtixaanaadkan oo ka kala dhacayay gobolka Banaadir iyo sidoo kale gobolada ay maamulaan maamulada Hirshabeelle Galmudug
jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya. wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyo kormeer uu ku sameeyey qaar ka mid a goobaha imtixaanaadka iyo ardada uu kula kulmay goobahaasi. waxaan rabaa marka inaan kaloo idiin sheego in ardaydii aan soo aragnay iskugu jireen kuwa aan hadda sheegay iyo kuwa runtii aada u nasiib yeeshay. iskoolada mid kamid a waxaan kusoo aragnay 2 gabdhood oo kii hore aan gelin maxaa yeelay umulay ahayd, laakiin fursadayba heleenba ay hadda imtixaanka ku galaan. waa wax lagu farxo wey runtii. waxaan la kulannay kuwa jeese ku dhegan tahay oo jaban oo maca daalika yimid ee imtixaankii galay kuna faraxsan. waxaan la kulannay arday camoolayaala oo ayagoo camoola ah, inta hadda meeshaan taagan wax camoolaa kuma jiro, laakiin qof indhala oo imtixaan galay oo haddana faraxsan oo aaminsan inta indhahala intay galeen inay ka badan geli karaan. mustaqbalka soomaaliya dadka u soo baxaayo waa idinka. annagana waxaan difaacayna waxaa waaye in iftiinkiina aan mugdi laga dhigin. waxaan idiin rajaynaynaa dhammaantiin guul. waxaan idiin rajaynaynaa mustaqbal aada u wanaagsan, waana hubaa inaad guulaysanaysaan. inkastoo imtixaankan loo fadhiisto uu yahay kii labaad, kii horena uu fashil ku yimid, ayaa wasiir goodax waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka ay qaaday wasaaraddiisa maadaama imtixaanaadkii hore uu fashilmay iyo waxa isbeddel ah oo iminka ku yimid imtixaanaadkan. marka waa su-aal fiican. maxaa laga yeelayaa wey su-aasha? maxaa qabateen oo tan ay tii hore uga duwan tahay? tii hore way fiicneed runtii, ma dhaliilayno maxaa yeele aaday u fiicneed, laakiin maadaama uu niyad jab dhacay dhuudhuujis zaaid aan samayn. maxaa ka mid a dhuudhuujiska? kow, horta sanduuqa awal waxay ahayd qofka kormeeraha ayaa furaana haystay, sanduuqan ahayd. hadda saraakiil korneello wada ah oo booliiska soomaaliya ka tirsan ayaa sanduuqa haayo, furahana kormeeraha haayo. korneelku sanduuqa kama ag tagaayo, markuu furo wixii laga qaaday waa loo saxiixaya. mas-uuliyaddiisu meeshaa isku haraysaa. waktiga imtixaanka ka horna lagama qaadi karo. horta waa waxaan soo kordhinay. waxaan kaloon soo kordhinay inta magaalo wax lagu qaadayo meel meesha kale lamida ma jirto. imtixaanku waa imtixaankii, su-aaluhu waa su-aalihii, laakiin qoraalkaa kala duwan. waxaa laga yaabaa 5 su-aaloo hore inay ta u dambaysan tahay, 5 su-aaloo dhexe inay meelka hore ku jirto. marka magaalo walba imtixaankeeda waa ka duwan yahay magaalada kale. ma aha inuu su-aaluhu kala duwan yihiin, laakiin qoraalkaa kala duwan. waana u sheegnay kormeerayaasha iyo taliyaasha booliiska inaysan ku qaldamin oo daqiiqadiiba la ogaana haddaa social media lagu arko. waxaa kale oo aan samaynay oo tii hore ka duwan in markan aan wakti gaaban ku geynay goobihii. markii hore wakti dheeraa jiray. inta badan bulshada soomaaliyeed ayaa il gaara ku hayay arrimaha la xiriira in la xiri doono social mediyaha maadaama wasiir goodax uu horey arrinkaas uga dhawaajiyey. haddaba maxaa isbedelay? wasaaraddu waxay maxkamadda sare ee waddanka u qoratay arji ay ka codsanayso social media in la xakameeyo waktiga imtixaanka haddii baahi timaado. waa hadday baahi timaado. waa hadday baahi timaado. kelimaddu waa hadday baahi timaado. maxkamadda xukunkaas waa noo riday. mahad ha ka gaarta maxkamadda iyo garyaqaanka guud oo dowladda ku mathalay dacwadaas. hadda wasaaraddu waxay haysataa awood saacad kasto social media aan ku joojin karno. maanta ma la joojin maxaa yeele baahida ma jirto. shaqadii kale oo adkeedoon qabanay ayaa noo shaqaysa. marka sabab loo joojiyo ma jirto, laakiin haddii khatar aan aragno ilaahay ha naga haayo waa la joojinaya. ugu dambeyn cabdulaahi goodax bare ayaa tilmaamay inay jiraan dad siyaasadeynayo waxbarashada ardayda soomaaliyeed, isagoona ardada uga digay in ay arrimahaasi ku dhex milmaan. waa maalin guul leh dadka rabo inay mustaqbalka caruurta soomaaliyeed ay siyaasadeeyaan. saaki waxaa la yidhi gaalkacyo qaraxa ka dhaca ardaa wax ku noqotay. raadayaasha beledkaana sheegaya gaalkacyana xataa bustoolad kama dhicin. marka waa garanaysaan waxa ay jeclaayeen way taas. waxay jeclaayeen waxay ahayd in balaayo dhacdo, ummadda soomaaliyeed ku la'daan, ilmihii soomaaliyeed la'daan. waa dad ay meeshaa siyaasadda ka gashay. kuwaas inaad meel uga soo jeesataan waay. weli waxaan idinku bishaaraynayaa doorashada soo socoto codaa leedihiin intiina meesha taagan waa inaad dadka kala barataan. ka mustaqbalka ka shaqaynaayo
iyo ka rabo inuu kursiga u ordo keliya. intaas waa siyaasadan ku darsanahay, waa muhiim inaad la socotaan, aaday muhiim u tahay. haddaba waxaa laga dhuur sugayaa qaabka wasaaradda waxbarashada ay u xakameyn doonto imtixaanaadka ardadan Soomaaliyeed ee galayaan muddada 5 maalmood ah. wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta isbedel ku sameysay xubno ka mid ah maamulka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cali Caadle ayaa xilkii ka qaaday duqa Beledweyne Qadar Xasan Afrax, waxaana xilkaasi uu magacaabay Safiyo Xasan Sheekh Jimcaale. haweeneydan ayaa horey u soo qabatay xilka gudoomiyaha maamulka degmada Shibis ee gobolka Banaadir, waana markii ugu horeysay inta la ogyahay taariikhda Beledweyne ee duq magaalo ka noqoto qof dumar ah. inta badan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameysa maamulka gobolka Hiiraan, waxaana marar badan isku bedbedelay dhowr xubnood. madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa cafis u fidiyay ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Somaliland ayaa arrintan u sababeysay bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed. warbixin amuurtaas ku aadan waxaa soo jeedinaysa Nafisa Xuseen Cabdi Najax. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta cafis u fidiyay 14 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo ay ku qabteen dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. afhayeenka maamulka Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa sheegay inuu madaxweyne Biixi u cafiyay maxaabiistani fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan. sidoo kale waxa uu tilmaamay in arintani ay qayb ka tahay mid ay Somaliland ku doonayso in lagu wada noolaado nabad iyo deris wanaag. ugu horeyn afhayeenka ayaana aqrinaya magacyada xubnaha cafiska loo fidiyay. عبد الناصر عثمان علي، عبد النور محمد عبد الله، محمد سعيد يوسف، علي فارح آذن، محمد عبد عينب، عبد الحافظ عبد الله حلانه، حسين سعيد ورسمه، عبد الناصر محمد نور، محمد أبشر آذن، إبراهيم حسن صلاد، أحمد محمد أحمد، سعيد دعالة علي، مهد نور علي، فارح محمد عبدي. مدحوينات جمهورية Somaliland wuxuu ku maanta uu ku saamaxay wareegta madaxweyne wuxuu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu saamaxaad u fidiyo maxaabiista dagaal ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku soo qabteen dagaalkii Tukaraq, kuwaas oo magacyadoodu kala hayeen kuwaan idin xaadiray tiradooduna ay dhameyd 14 maxbuus. tallaabadaasi waxay muujinaysaa Somaliland inay mudnaan weyn siinayso amniga iyo nabadda. Somaliland iyo Puntland ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf dhinaca suhdinta ah, waxaana marar badan ay ku dagaalameen gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. mahadsanid Nafisa. xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka Mudug. maleeshiyaadka labada dhinac ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada nawaaxiga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cali Gaab ayaa warkan ka soo diray Galmudug. xiisad colaadeed ayaa laga dareemayaa deegaanka Taaroga oo ka tirsan gobolka Mudug. xiisadu waxa ay timid kadib markii laba maleeshiyaad oo deegaanka ay muddooyinkii dambe halkaasi ku dhex marayay isku horimaad dagaal ah. barqanabadii saaka waxaa la sheegay in isku horimaad kooban uu dhex maray labada maleeshiyaad beeleed ee muddooyinkii dambe xiisadu ay dhaxaysay halkaasina ay ka ogneed. dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in israsaasayn kooban ay dhex martay labada maleeshiyaad ee ku wada sugan deegaanka Taaroge ee ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland. dadka deegaanku waxay cabsi weyn ka qabaan mar kale halkaas ay ku dagaalamaan maleeshiyaadka deegaanka kuwaas oo iminka isku fadhiya goobaan sidaas ay u kala fogeen. maalmihii ugu dambeeyay odayaasha dhaqanka Galmudug iyo Puntland maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waday dadaallo xal loogu raadinayo xiisada halkaasi ka soo cusboonaatay. inkastoo odayaasha dhaqanku ay weli ku guuleysan inay arrintaasi soo afmeeraan. dadaalada kala duwan ee xalku loogu raadinayo xiisada ka taagan deegaanka Taaroge ayaa weli socota iyadoo aysan jirin cid halkaasi tagtay oo ku baxday inay labada dhinac kala qaado. muddooyinkii dambe gobolka Mudug ammaankiisa ayaa soo hagaagayay, waxaana odayaasha dhaqanka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland iska kaashanayeen nabadgelyada gobolka Mudug. Cali Xasan Barqadle, Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug.
xisbiyada midigta dhexe iyo bidix dhexe ayaa lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka ururka midowda yurub kadib markii xisbiyada liberalka iyo green bartiga iyo kuwa qowmiyiinta ay guulo ka soo hooyeen doorashooyinkii baarlamaaniga ee midowda yurub xisbiyadan ay taageeraan dadka qowmiyiinta ah ee ajnabiga necab ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay dalalka faransa talyaaniga iyo jarmalka halka xisbiyada green barty iyo kan liberalka ay guulo ka keeneen dalalka britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28 wadan ee xubnaha ka ah midowda yurub hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee lega barty ee dalka talyaaniga Matteo Salvini ayaa doorashadii talyaaniga ka dhacday ku guuleystay 30% waxaana uu sheegay in shacabku ay siiyeen fursad ah in uu wax weyn ka bedelo ururka midowda yurub doorashadii midowda yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay ee codadkooda dhiibta lagu tilmaamay kuwii u badnaa muddo 20 sano ah ugu dambeyntiina war qoraalaha oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Masar ayaa lagu cambaariyay weerar qarax loo adeegsaday oo ka dhacay wadanka Ciraaq qaraxa ayaa lagu soo xiray gaari kaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr qof waxna uu ka dhacay galbeedka magaalada Mosul oo ah meeshii lagu aasaasay kooxda Daesh sanadkii 2014 Masar ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda Ciraaq iyo shacabkeeda isla markaana ay ka caawinayso la dagaalanka argagixisada qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay maxkamad ku taala Ciraaq ee xukun dil ku riday 3 xubnood oo Daesh ka tirsanaa kuwaas oo u dhashay dalka Faransiiska ciidamada dowladda Ciraaq ayaa Daesh ka saaray meelihii ay ku sugnaayeen waqooyiga dalka sanadkii tagay kadib howlgal dhiig badan ku daatay oo uu Mareykanku ka gacan siiyay dowladda dalkaasi Ciraaq waad ku mahadsantahay la socodka warkayga si aad u rukumato wararkeena fadlan subscribe saar channelka kadib furo gambaleelka mahadsanid